Gubo Alendio, Ado Harjife, Lahan Harad, Ala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada ardayda sharafta leh. Waa mar kale iyo casharkeenii aad nooga barateen Al Asmar College. Arday casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay vocabulary and meaning. Vocabulary and meaning. Vocabulary erayo and iyo meaning micnahooda. Marka ereyga ugu horeeya maanta casharkeen waxa weeyaan beautiful. Beautiful waxa weeyaan qurux badan. Beautiful qurux badan. Example tusaale, Samara has beautiful long hair. Samara has beautiful long hair. Samara waxay leedahay timo dhaadheer oo qurux badan. Samara waxay leedahay timo dhaadheer oo qurux badan. Arday ereyga xiga waxa weeyaan peaceful. Peaceful waxa weeyaan macnaheedu nabaddoon weeyaan, nabaddoon. Peaceful waxa weeyaan nabaddoon. Example tusaale, they are a peaceful people. They are a peaceful people. Iyagu waxa weeyaan dad nabaddoon ah. Iyagu waxa weeyaan dad nabaddoon ah. They are a peaceful people. Iyagu waxa weeyaan dad nabaddoon ah. Arday ereyga xiga waxa weeyaan keen on waxa weeyaan aad u jecel. Keen on waxa weeyaan macnaheedu aad u jecel weeyaan. Example tusaale, the child has a keen sense of hearing. The child has a keen sense of hearing. Ilmuhu waxa uu leeyahay dareen maqal ah. Ilmuhu waxa uu leeyahay dareen maqal ah. The child has a keen sense of hearing. Ilmuhu waxa uu leeyahay dareen maqal ah. Ereyga xiga waxa weeyaan impatient. Impatient waxa weeyaan macnaheedu dulqaad la'aan weeyaan. Dulqaad la'aan. Impatient dulqaad la'aan. Example tusaale, my sister is as impatient as ever. My sister is as impatient as ever. Walaashay sidii weligeed ay u samri laaday. Walaashay sidii weligeed ay u samri laaday. Yacni macnaheedu waxa weeyaan walaashay sidii weligeed ay u dulqaadan laaday. Arday ereyga labaad waxa weeyaan natural. Natural waxa weeyaan macnaheedu dabiici weeyaan, dabiici weeyaan. Example tusaale, she has a natural gift for speaking. She has a natural gift for speaking. Waxay leedahay hadiyad dabiici dhinaca codka ah. Waxay leedahay hadiyad dabiici dhinaca codka ah. She has a natural gift for speaking. Waxay leedahay hadiyad dabiici dhinaca codka ah. Saaxiibayaal, ereyga xiga waxa weeyaan gloomy waxa weeyaan macnaheedu murugo weeyaan, murugo. Gloomy waa murugo. Example tusaale, the future looked very gloomy. The future looked very gloomy. Mustaqbalku wuxuu aad ugu muuqdaa mid murugo badan. Mustaqbalku wuxuu aad ugu muuqdaa mid murugo badan. The future looked very gloomy. Mustaqbalku wuxuu aad ugu muuqdaa mid murugo badan. Arday ereyga labaad waxa weeyaan emotional. Emotional waxa weeyaan shucuur. Emotional shucuur weeyaan, shucuur. Example tusaale, they are more emotional than we. They are more emotional than we.
iyagu waxa weeyaan qaar shucuursan marka anaga they are more emotional than we iyagu waxa weeyaan qaar shucuursan marka anaga waa hagaag arday cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan idinkaga tagayaa tan iyo kulanti dambe insha Allah saas Gogo alendiyo ado harjife dahan harad ala